aqoonsigii Somaliland Israa'iil ay u aqoonsatay in Somaliland ay tahay jamhuuriyad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale ayaa madaxweyne Xasan Sheikh waxa uu ku kali noqday raadinta xal diblomaasiyadeed ee xiriirka caalamiga wanaajinta si uu mar kale dowladda federaalka Soomaaliya ama guud ahaanba dhulka Soomaaliyeed ugu difaaco kala qaybin taas oo ku cuslaatay dhinaca kale marka loo eego dardarka Israa'iil iyo in beesha caalamka haatan ayna u dhagan nugleen arrimaha Soomaaliya oo ay colaad iyo abaaro daashadeen madaxweyne Xasan Sheikh ayaa dhinaca kale warar hoose waxa ay sheegayaan in uu dalbaday dhinaca kale in guud ahaanba isku shaandhayn xooggan lagu sameeyo golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la aaminsan yahay in ay shaqadooda gabeen dhinaca kale dalalka dariska oo ka aamusay doorkoodii la filayay in ay ka qaataan midnimada Soomaaliya kadib heshiiskii Afrika ay ahaa in dal ka mid ah qaaradda Afrika aan si sahal ah lagu kala goyn karin iyo in hal dhinac loogu kala soo jeesto cid kasta oo soo hojuunta midnimada dal ka mid ah qaaradda Afrika taas oo ay muuqato in ay ugu baxeen amaba ay ka madax adeegeen in si cad ay u dhaliilaan amaba ay isgarab istaagaan isbarbar dhigaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Israa'iil aqoonsigeeda ee ah inay ku xadgudubtay madax bannaanida dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya dagaalkan diblomaasiyadeed ee xoogan dhinaca kale xiriirka caalamiga ee madaxweyne cirib doorashadiisii kadib oo aad u soo kabanayay Somaliland iyo dhaqdhaqaaq galaangal Somaliland ay ku yeelatay qaybo ka mid ah Yurub Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta oo garab xoogan u ah maamulkaasi Somaliland ayaa dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay doonaysaa in ay ku ssoo dabaasho dhinaca kale ayna dunida mar kale cod dheer ugu sheegtay in Soomaaliya ay tahay hal mid sidoo kalena aan la kala goyni karin xornimadii 1960 inta xuduudaha ah ee uu yeelay gumeystaha dhinaca kale waxa Somaliland dhawaan la filayaa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro in uu gaaro dalka Israa'iil gaaraan uu booqdo Qudus iyo Tel Aviv oo kula kulmi doono ra'iisul wasaare Netanyahu sidoo kale Israa'iil ayaa caawinaad buuxda waxa ay ka siinaysaa Somaliland sidii ay uga go'ilay Soomaaliya inteeda kale iyo in ay soo gaarto sidoo kale isdhexgal buuxo ay ka dhigto dowladda federaalka iyo dhinaca kale inay isdhexgal buuxda ka hesho shacabka Israa'iil iyo sidoo kale Somaliland si ay u fushiso danaheeda ku aadan Xuutiyiinta dalka Yemen iyo soo raridda dalka reer Falastiin ee dhulkooda ay doonayso in ay ka soo rarto Gaza sidoo kalena ay u deegaamayso qaybo dhaco xeebaha Berbere si kastaba haatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa arrintan ay ku noqotay mid ama kaag ila yaab leh mid wax laga qaban waa u eg marka aad eegto Somaliland oo ku naaloonaysa in qaybo ka mid ah wafdi iyo sidoo kale warbaahin ay soo gaareen Somaliland gaar ahaan Hargeysa sidoo kale si weyn loogu soo dhaweeyay iyadoo qaybaha bulshada ka mid ah ee Somaliland gaar ahaan Hargeysa la arkay iyagoo huban calanka Israa'iiliyiinta ama Yuhuudda si kastaba haatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan mar kale waxa ay ku celisay si kasta oo ay geed dheer mid gaabanba u kortay sidii ay mar kale u xaqiijin lahayd amaba ay soo hor istaagi lahayd aqoonsiga Somaliland ee ku aadan in Soomaaliya ay ka go'do Somaliland amaba loo aqoonsado jamhuuriyad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale xiriirka Soomaaliya iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta ayaa war hoose sheegayaan inuu aad u xumaaday kadib markii ay dowladda federaalka Soomaaliya u aragtay in galaangalkan xoogan iyo aqoonsiga ay qayb ka mid ah leedahay Imaaraadka Carabta oo dhinaca kale dekada Berbera gacanta ku haya ee Somaliland xiriir dhowna la leh sidoo kalena u laba gibileynaya Soomaaliya iyo sidoo kale Somaliland isagoo Somaliland halka Soomaaliya ay ku xoogan tahay iyadoo Somaliland shirkadaha ugu badan ee Imaaraadka Carabtu leeyahay halkaasi ay joogaan dekada Berberana uu gacanta ku haya shirkad ay leedahay Imaaraadka Carabta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhinaca kale waxa ay doonaysaa in arrimahan sidii ay si dhab ah ugu wajihi lahayd inkastoo ay dagaalka kali ku tahay haddana in ay soo celiso guud ahaanba in ay dunida ku qanciso in Soomaaliya ay tahay mid sidoo kalena halkaasi lagu istaajiyo amaba dalal kale ay soo raacaan Israa'iil ee ay ku dhiiradaan wadada Israa'iil ay martay oo kale iyo in ay aqoonsadaan Somaliland dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kulanka qaramada midoobay waxa ay kulan degdeg ah oo qaramada midoobay ay ka qabatay arrimaha Somaliland waxa ay dood adag ka sameysay aqoonsiga Somaliland iyo sidoo kale inay si adag u dhaliisho hanaanka Israa'iil ay ku aqoonsatay systemka Somaliland iyo in Soomaaliya ay tahay hal mid sidoo kalena Israa'iil ay xadgudub dhab ah u geysatay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si kastaba ha isku dhaashaan dheetan golaha wasiirada ee madaxweyne Xasan Sheikh uu codsaday sidoo kalena safarka ra'iisul wasaare iyo sidoo kale safarka madaxweynaha Somaliland
cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ee la filayay in maalmaha soo socda uu ku tago Talaabiib sidoo kalena dawladaha qaarkood ee isku adkeynaya inay si dhab ah u garab istaagaan Soomaaliya ayaa muujinaya xaaladda siyaasadeed ee diblomaasiyadeed ee cakiran ee haatan ka jirta geeska Afrika iyo caalamka oo dhan si kastaba ahaatee waxa laga dhir sugaya safarka Ciro waxa ka soo baxay sidoo kale talaabada ay qaado dawladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan aqoonsiga Somaliland iyo ka hortagida ama is hor istaagida arrimahan ku saleysan qadiyadda Somaliland waa tahay daawadayaal haddii ay tahay markii ugu horeysay soo booqato janaalka Amiiro fadlan subscribe iyo saar muuqaalkana like saar share garee gaarsii saaxiibadaada mahadsanid daawada